waxaan kaloo rabaa inaan kelmad ka iraahdo ugu dambeyn arrintan laga hadlayo oo ah matalaadda gobolka banaadir waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay banaadir waa inay heshaan matalaadeedii waa sax laakiin waa kelmad xaq ah oo baatil loola jeedo yaa diidan inay hesho banaadir matalaadeeda cid diidan ma jirto dastuurku wuxuu qorayaa in golaha sare maxaa la yidhahdaa aqalka sare uu noqdo 54 markii la gooynayay anigu waan joog ra'iisul wasaarahan ahaa oo garowa 1 iyo garowa 2 meel ahayd ma garanaye mid walba noqon inay ahayd tii garowa 2 ahayd February 2012 waxaa lagu saleeyay waxay ahayd 18 gobol oo min 3 gobol marka wax waayayaa ma jiro gobol saddexdiisii waayayahay ma jiro banaadir baan waayeyn bakool baan waayeyn sool baan waayeyn sanaag baan waayeyn marka waxaa la rabaa iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo oo la ilaalinayo in gobol walbaaba wuxuu xaq u lahaa uu helo sadbursiyana aan lahayn naaqusna aan ahayn ayaa loo baahan yahay marka waan ka xumahay dadka in laga casaabaadkooda la kiciyo damiirkooda la xoqxoqo la yiraahdo reer hebel baa diidan matalaadiina gobol hebel baa diidan maya waa la isku qabanayaa waxana waa sharci waa dastuur waa heshiis bulsho loo baahan yahay qolo walbaaba inay ilaaliso xamar baan rabaa inay ilaaliso buntland baan rabaa inay ilaaliso heshiiskaas bulshada lagu yahay heshiiskaas bulsho oo lagu heshiiyey dadka dhexeeya marka aad iyo aad ayaan mar kale kaga mahadnaqayaa martiqaadka aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha horumarto buntland ha noolaato